بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعن داودياشينا ميل والبود نغا داونيسان يسي والبود نو داونيسان وقت وعن ويوع كنا سو دوادا برنامج شدينا الله با inoo barateen maanta maxaan idiinsi yaasa ka hadli doona waad ka boga doontaan hadduu rabbi weyna raaci karo kahor barnaamijka intaan guda galin fadlan waxaan idinka codsanayaa haddaad nagu cusubtaa walaal subscribe saar say dhiirigelin inagu noqoto adiguna waxba kaama dhibto sidoo kale barnaamijyadeena haddii aad ka heshay like dheh haddaadan ka helinna unlike dheh sidoo kale muuqaalkeena sii share garay si meelo fogfog u gaaro sidoo kale ha iloobin inaad furato gambaleelka si mar walba aad u noqoto qofka koowaad ee waxyaabaha xiisaha badan ee halkan aan soo dhigno ugu faa'iideysta biidni illaahi tacaala barnaamijkeena ayaan guda geli doonaa maantuse waxaan kaga hadli doonaa maryama bintu cimraan insha allahu tacaala dad badan inay wada garteen ayaan rajaynayaa insha allahu tacaala markii ay tiray cimraan xaaskiisa rabbiyow adiga ayaan kuu nadaray waxa calooshayda ku jira rabbiyow iga aqbal ducadeyda adigu mid maqal badan oo cilmi badan ayaa tahay ama ducada ajiib badan markii ay dhigtay ayaa waxay haddana oo macnaa ay dhashay weeyaane ayaa waxay tiri waxaan dhalay gabar ilaahayna wuu og yahay waxa ay dhashay in ay gabar tahay gabadhuna aysan la mid ahayn wiilka waxaan ugu magac daray ayay tiri maryama waxaana rabbiyow aan kaa magangala ayay leedahay hooyadeede waa cimraan xaaskiise iyada iyo carruurteeda shaydaanka midkiisa la fogeeyey ayaan kaa magangeliyey ayay leedahay wuu aqbala rabbigeeda ducadeeda aqbalid wanaagsan ayuu aqbalay wuuna barbaariyey barbaarin wanaagsan wuxuuna kafaalaqaasiyey zakariya mar walbo marka uu u soo galo meesha mixraabka ay ku jirta zakariya wuxuu helayaa cunto ama rasaq markaasaa wuxuu ku leeyahay maryamoy sidee kugu sugnaatay tani oo raashinkan ah waxay leedahay tani waxay ahaatay isagu wuxuu ahaaday xagga rabbigayga ilaahayna wuxuu arsaqaa qofkii doono xisaab la'aan markaas baa zakariya insha allahu tacaala isagana gaar baan kaga hadli doonaaye isaguna axwaal kale ayuu sii dhexgeli doonaa intaasi kadib ayaa waxaa dhacaysa insha allah maryama ayaan israacinaynaa malaa'igta ayaa waxay ku leedahay maryamoy ilaahay waa ku doortay wuu kaa dhahiray xumaan oo idil wuu kaa dhahiray wuxuuna kaa doortay uunka dumarka oo idil ayuu leeyahay allahu akbar bal fiiri maryamoy ayay leeyihiin malaa'igta adeec rabbigaaga usujuud u rakuuc kuwa rakuucsan micigooda u rakuuc ayuu leeyahay taasina waa waxa wararka maqan waaye ilaahay baa adiga ku waxyooday leedahay marka maryama intaasi kadib ayay malaa'igtii waxay leeyihiin maryamo ilaahay wuxuu kugu bishaareeyey kalimo oo taasoo xaggeeda ah ismuhulmasiix magaciisana qofkaasi macnaa nabiyullaahi ciisa calayhi salaatu wasalaam ayuu rabbi ugu yaboohayaa bal fiiri maa sha allah tabaaraka allah wuxuu ilaahay kula doonaa cidna kaama celin karta maa sha allah bal fiiri qisado isagoo marka nabi ciise lagu sheegay mid weji kule inuu adduunya aakhira yahay kuwa la soo dhawaynaya uu ka mid yahay waa gosha asoo ku jira ayuu hadlayaa bal ilaahay awoodihiisay ka mid tahay maa sha allah oo gar madow leh ayay culammada qaarkooda sheegaanoo oo gar madow leh oo kuwa wanaagsan ka mid ah markaasaa maryama iyadoo kufrin aysan ka ahayn caasinna aysan ka ahayn balse wax inay ka ogaata rabto ayaa waxay tiri rabbiyow sidee anigu wiil igu sugnaanayaa iyadoo uusan itaawanin bashar qur'aanku astaxiya weeyaan kalaamka ilaahay taawashadaasi waa jamaac weeyaan balse laakiin waa taawasho markaas ayaa waxay leeyihiin malaa'igtii ilaahay sidaasoo kaleba wuxuu doono u sameeyaa ama u abuuraa hadduu arin xugmayana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay ahaaw arrinkaasna wuu ahaanayaa maa sha allah qisada hal maalin iyo hal maqaam quraan laguma soo koobi karo waan arkaynaa walaal xiise gaara ayay xambaarsan tahay mufiid badan ayaan ka faa'iidaynaa ay ugu wantahay allah weyne jalla wacalaa in waxa uu addoonkiisa la doonaya cid ka celin karta haba yaraatee aysan jirin sidoo kale
addoonka hadduu alle u qaalis yeelo cibaadadiisa iyo wax doonistiisana in alle xaggiisa marna uusan ka qadeenin waayo alle subxaana wa tacaala ra'uuf waaye mid u turid badan addoommadiisa latiif waaye ilaahay subxaana wa tacaala rasaaq waaye marka insha allahu tacaala in arrinkaasi aan wax badan ka fahanna ayaan rajaynaynaa barnaamijkeena maanta maryama bintu cimraan ayaan kaga hadalnay wax badan in aad ka faa'iida doontaanna waan rajaynaynaa fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe dheh waxba kaama dhibayso annagana wax badan ayay inoo taraysaa sidoo kale barnaamijyadina haddaad ka heshay laag dheh sidoo kale haddaadan ka helinna unlag waad dhihi kartaa muuqaaladayna sii sheergaray si meelo fogfog ay u gaaraan hakana iloobin channelka ismaaciil aqiila in aad gambaleelka furato si waxyaabaha xiisaha badan ee halkan aan soo dhigno durbadiiba ay kuu soo gaaraan guud ahaan barnaamijkeena maanta intaas ayaan kuu soo gabagabaynaynaa anigu waa walaalkiin waa saaxiibkiin ismaaciil maxamed sid cali halka aad naga daawanaysaan waa channelka youtube-ka ismaaciil aqiila inta barnaamijkan midkiisa xiga aynu ku kulmi doonno saaxiibada qadarinta iyo qiimaha